رمضان يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وولاشن قدر كيف وإذن له هبين وناكسن هبين عيتاني حلقان وإذن سلامة أحبابي أصحابتي إذا دمانتين آد إذن سلامة ما أنتو حان هايا عبيتان مفيد للصحة لده أفعروه أما عبيتان عافماتك آد وناكسن ما لحاس عبيتان كان وسوق لي حوغات بدلن عبيتان كآد وجعله للمعانت إيا موسك إيا حياس الاسكو درايو maanta waxaa idiin wadaa moos inta laba xabe ah aan soo jarjar mooski caadiga ahaa halkan waxaan ku haystaa laba xabo oo liin macaan ah liintii waa soo fiiqay waxa usoo fiiqay haddii la jarjaro dhaxdan waxyaabaha kaga jiro oo markii la cabaayo afka kaa galgalaayo miiritaanna ma u rabo waxyaabahaas aa kasoo bixinaayo wixii dhaxda kaga jiray waxaan usoo jarjartay aan usoo fiiqday aan dhehe usoo kala gogooyay ma soo jarjarin waxaa kaloo inta ku haystaa loos yariis looskeena caadiga ahaa oo ku carfinaya loos badan ma rabo wax yariis oo caadi ah waa carafta uga baahanahay inta waxaan kusoo haystaa malabkeena dabiiciga ahaa malabka Soomaaliga la kasaayay oo laba qaado iyo haaf camal ah inta ku haystaa inta waxaa kaloo ku haystaa liimandriini magac kale inaa u kasaysiin ma aqaan aan liimandriini u kasaa liintaaniita liin dhanaa ma ahan liin macaan ma ahan liimandriini aa lahaa marka ما بعرف إنه أحكي كسيسين والله لكن اللي مندريني وحاوي عان واي إذن كنا فهمتيهين إن محان كلو إنتو كهستا بيا عادي لو بكيري يهاف بيا عادي وقبو أو برف عن لو بحنين وقبو إسكا نورمال إلما وحكسينا قبوغا وديدا زايد كأه marka waxaan rabaa intaasaan isku soo dardarayaa qaabka isku soo dardaraayna waa idin sheegayaa cabitaankan waxaa idin dhahay hadaa laasimataan wallahi caafimaadka maasha Allah waaye dhiiga u fiican yahay midabka dhanka dadka oo jiimka sameeyo aad u anfacaya waxyaabo badan oo aan soo koobi karin uu aad kaaga difaacaya sokor ma ku dareysid sokorta sideedaba horta caafimaad ma ahan haddana malabka kaga sii maarmeysaa mooska dhadhan dabiici oo malabka dhadhankiisa dabiici liin macaan sidoo kale liintan ayadan lagu daraa mindiriinida dhadhankeeda intaas isku soo diyaarsanayna kadib isku soo noqonayna midda kale ku dartid maxaa yeelay caanaha liinta way u darantaa horta sideedaba ma isku wanaagsano dagaal ka dhaxeeyo daruuri waa dhahaayane yoogada ku darsanaa yoogada ka seesiin amalina kan yariiska ciyaalka la sii dadka weyn ee cunaan kaasa ku soo darsanada caanaha u baahanaa ma ka maarmaa leedahay cabitaanka marka intaan isku soo diyaarsanayna isku soo noqonayna waa kana haddana saana isugu soo diyaarinayna mooska ku soo shubaa awalan waxaa kaloo ku soo darsanayaa liin macaanti waxaa kaloo ku soo darayaa looski yaraa waxaa kaloo ku soo darayaa malabki booska wuxuu galayaa oo sokorta dhadhankiisa waana wax caafimaad oo u fiican dhiig sifaynta iyo dhan walba malabka maasha Allah waaye aad u dadku anfaca qofka isticmaalayo malabka iyo liinyaasha waxyaabo nafaqada fitamiinka ay u badan yihiin diinta islaamkana Nabi Maxamed عليه الصلاة والسلام aad u amaan malabka cunistiisa in la isticmaalo mar walba liintan waatana labada xabo soo kala jeexday waa ku miiraale liinta waxa dhicaanka la raba inaa ku shiido qolofteed iyo wax kale ma rabo waa ku soo miiraya kadibna insha Allah isla socod wanaagsan waakana liintii inta ku soo miirtay labada xabo weelkan biraha kaga soo bixinay oo ku soo dhaxdarsaday haddana waxaan ku soo daraa biyo qabowgi koo galaas hal bakeeri labo iyo haaf yar intaasito oo biyo iyo mooski malabki looski yaraa liin macaanti oo labada xabo ahayd ayadan mooskan wax buu ahaa iyo liin midriini labada xabo ahayd
inta isku soo shiidanayna makiinada dhawaaqeeda idinka xiraa aad u buuxda makiinada waa taqaaniin adkeeda ma rabo inuu dhigaa idinka bujiyo inta isku soo shiidaya oo isku soo noqonayna insha Allah wakana haddana aytaanka waa soo shiitay inta waxaan ku soo diyaarsaday cambo yar oon soo jarjaray cambaha dhadhan macaan oo yeela ma lagu shiidayo jabjabkiisa caada lagu dhaxridayaa waa ku qurxisanayaa oo kale waana ku qurxinaa dhadhan yar oo meel dheer oo macaan oo yeela cambaha asna waa fresh waa cambaha aad u fiican yahay cabitaanka ku soo darsaneena marka cabitaanka saas oo noogu soo baxay quruxdiisa waa kaas waa cabitaan aad u wanaagsan run ahaantii aad uga heli doontiin ani mar walbaan samaystaa isbuuci dhexdiisa laga yaabo dhowr mar inaan samaysto wuu fiican yahay oo u bogi doontaan idinkan ila tijaabiya wax yar waxaa ku soo darsanayaa sabiibkan maasha Allah waa dhanka caafimaadka maskaxda horta aad ugu fiican yahay ilmaha xitaa hadda u rukunto ilmo aqli badan oo maskaxdooda aan ilaawsho lahayn waxay noqonayaan maasha Allah sabiibka dhankiisa dadka waaweyn ka sii daran marka kaali iska arag he wallahi inta ma soo tijaabisan ku qasaari doontid waa ii soo duceyn doontaa u maleynaa wixii fikrado ka maqan marka aragto insha Allah asxaabiyan iska warheeno ad kadib wixii meesha dadka ku cusubna soo dhawaada subscribe noo saara inta ila joogteenaba ila joogteen dar ilaahay idin jeclaa mar walbo khayr iyo caafimaad iyo wacaba maca salaama